wasiirka laba siyaasi baan ayalaha siyaasadda ugu soo reeyay wasiir boo isaguna wiiga damiyay marka kulay isaguna dagaalkiisu ku jira wasiir hore Cabdirasaaq Ali Ismaan oo xilligan murashax wardaya golaha baarlamaanka deegaanada gobolka Awdal isagoo ka sharaxan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud murashax Cabdirasaaq Ali Ismaan ayaa maanta waxa uu safar dhinaca dhulka ugu anbabaxay deegaanada buuraleyda gobolka Awdal isagoo u tagay bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanadaasi intuu san ka anbabixin ayaa waxaan kula kulmay wadada dhinaca galbeedka Boorama looga anbabaxo waxaana ugu horeen baan su'aalay sidii halkan uu ku soo gaaray maadaama shakhsiyaadka wardaya xilka murashaxnimada ay soo xulayeen oday dhaqameedku waxaan ahay xildhibaan musharaxa xisbiga Ucida anigoo wasiir oranaha in badan siyaasadda ku soo jiray ayaa waxaan nasiib aan u yeeshay inuu Ilaahay siiyo xisbiga musharax ka noqdo xisbiga Ucida taasoo qadarka Ilaahay ay ku xidhan tahay hal badan baan soo galay ilaa 3 bilood baan ku soo jiray 3 bilood ee dagaalkan ku soo jiray kullay waxaan ka soo baxay talku afar oday oo guri laga afartooda odayaasha guriga ku jiro ma taageerayaasha otay adoo waan ka soo baxay nasiib wanaag aga xisbigaan ka soo baxay odayaashana ay mushkil ma leh tolkay waan dhamaysanaa dilaahay dhaw dhanka kale murashax xildhibaan golaha baarlamaan Cabdirasaaq Ali Ismaan ayaa waxa uu ka warramay sida iskula jaan qaadi kara mabaadiida siyaasadeed ee kala aaminsan yihiin isaga wasiirka ganacsiga Soomaaliland oo isku deegaan ay ka soo wada jeedaan wasiirka laba siyaasi baan ayalaha siyaasadda ugu soo reeyay wasiir boo isaguna wiiga damiyay marka kulay isaguna dagaalkiisu ku jira anigu xaqaygu ma doonay wax kale dhibaatin uma dhaxeeyaan waa dimuqraadiyad Soomaaliland dimuqraadiyad bay qaadatay waa dimuqraadiyadda loo qaatay in laga baxo waxyaabaha kale ee qabiilka in laga baxo Soomaaliland markii dimuqraadiyadda habka xisbiyada badan qaatay qofka bilaadanka xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto ama isaga la doorto anu marka xaq waxaan leeyahay inaan tankayga muujo wasiirkuna dagaalkiisu ku jira taasina mushkil ma leh kulay nasiibkayga kala qaadaynaa isagoo kulmiya iyo anigoo Ucida rajinta lig bad rajinaysa inaad soo baxdo murashax golaha baarlamaan oo deegaankaaga aad matasho horta wallahi talada Ilaahay ba ku xidhan tahay Ilaahay waxaan ka marka Ilaahay ka soo kunaan waan rajinayaa aad baan ugu hanweynahay inaan ka soo baxo oo rijaadu weyn banaya ugu dambeyntii murashax golaha baarlamaan ee gobolka Awdal Cabdirasaaq Ali Ismaan ayaa waxa uu ka warramay safarkiisa uu ku tagay deegaanada buuraleyda gobolka Awdal isagoona fariin u diray taageerayaashiisa maanta ay tahay bishu 26 waxaan maanta halkan u baxayaa dhinacyada galbeedka bulshada waxaan u sheegayaa iyo ololahaygu kuley u bilaabmay habeenada dhan waan ku jiray bulshadana waxaan u sheegayaa taageerayaasheedu meel kasta ay joogaan boo nagu imanaya kuwa dalka dibadiisa joogana waa gaarsiinayaa hadikayga taageera amba taageerayaasha dibadda jooga kuwa dalka gudihiisa qulqul joogana codkiina aan doonayaa balle waxaan la diyaar baanahay waxaad igu caawisaan codkiina waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Ariel TV Boorama